بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Xawa Cabdi Dhiblaawe waxaan dhashay 1947 waxaan ku dhashay Xamar Cabdulcasiis district oo dhihi jiray waqtigaas kaamba Amxaaro waxbarashadeedii dugsiga dhexe ee sare Xamaran ku dhameystay 1964 Agosto 28 waxaan helay anagoo 9 arday ah ayaa waxaan qaaday Soviet Union dawladda Ruushka oo hore kala furfuratay hadda waxayna sii marsiisay xudayda waan ugu dejisay iskaaladii koobaad ee ahayd ka bacdi cadan iskaaladii saddexaadna waxaan ku sameynay Qaahira ka bacdina waxaan galnay Soviet Union 7 sano ayaa noogu dhamaatay Soviet Union oo 64 tagay waxaan ka soo noqday 71 markii aan dhameeyay jaamacadda Medicine oo waqtigaas aad u dhib badneed si loo dhameeyo ay sahlaneen intii baxdane markay dhameeyaanba ay dibadda sii aadayeen laakiin aniga qoyskaygu aad igu baahnay daraadiis waan u soo laabtay iyo dalkayga iyo dadkayga oo jeclay waxaana ka bilaabay digfeer shaqo 1972 ilaa muddo waxaan ka shaqayn jiray intii isbitaal ku tiilay Xamar oo ahay Madiina Martini iyo digfeer 14 sano ka shaqaynayay jaamacadda ummadda ardadii aan soo baray wax badan waxaan tagay waqooyi waxaan arkay meel la yiraahdo aan tagay Amud waxaan ugu tagay 6 isbitaal oo ardadeydii ay joogto nin walbaba uu isbitaal furtay oo heer sare ma yahay isbitaaladoodana ku farxay qaliimada ay suubinayaan aad yaabaysid way soo dhaweeyeen way mahadsan yihiin haddana waxaan aaday Mareykan Minnesota waxaan ugu tagay ardadeydii oo joogto oo mid ka mid ah oo yahay ninka wax qalo meesha qaliinka guud sameeyaba oo laga dambeeyo oo Soomaaliya aniga wax badan aan dawey jiray waqtigaas aad baan u shaqeyn jiray shaqadeydana waxay daacad weligay ma taqaanay wax isma raafsan qof muwaadin Soomaali oo daacad u shaqeeyanahay waxaan u tagay Maxamed waxaan dawey jiray haween badan waxaan ku dawey jiray mararka qaarkood dhirta Soomaaliya daawadeedu aan raadiyay waxaan arkay baabuurkii dameere iyaga gaari dameere wataan baabuur ma qabaan waa dad iska masaakiin oo indigenous ah baabuur ordaya ka daba imaanaya ama ninka wada uu wadid agaynin baa dameerkii iyo qofkii wadaba waa isla maraa markii aan digfeer la keeno digfeerna isbitaalka qura wax uu qaban kariyo waa waqtigaas ay dhaqaatiir joogtay oo cilmi leh markaan wax badan arkay rafaadka ay ku jiraan iyo naagihii isku mataqaanayo isku dhimanayo ayagoo foolanayo ilbihii iyo shuba biyood inta ku dhaco isbitaalka la soo gaarsiinba dhimanayo waa baxay meeshii hal qolaan ka dhisay oo naagaha ku umuliyo naagihii habeenkii jid male dhulkii waa hawd oo jid lahayn baabuur male naagihii markay fooshaan gaariyaashkoodii dameerkaygu igu keenayeen muddo dheer ma qaadanayso anigu hoostoodan degay bajaa dadkii waa igu nafisay haddana waxaan samayn jiray in jimcooyinka iyo khamiis walba aan tuulooyinka yaryarka ee tagno oon inta dawo qaadano islaan yaa halugay ugu raadsado tagno mucjisada waxay ahayd markaas
dadkii isbitaalka ma yaqaanaba ma imaanayaan maxaa dhacay qofkii markay sakaraad noqotaa isbitaal loola soo cararaa qofkii waa iska dhimanaysaaba dadkii waxay aamin qoftii markay dhimato waxay arkayaan isbitaalkii oo meyd laga soo bixinayo marka qof la arkaba waxay mudaa isbitaalkii inuu mataqaanaa isaga sababta qofta u dhimatay yahay isbitaalka ma tegaynin marka waxaan tusinayay dadkaas masaakiinta oo tuulooyinka degan inuu isbitaalka dadka daweeyo uu kaalmeeyo oo qoftii seeda timaado ay dhimato laakiin isbitaalka uu waxba dilin aniga isbitaalkayga wuxuu ahaa kii Soomaalida oo qof kastaba ay imaanaysay albaabada u furnaayeen markii ay abaarta dhacday oo qaxootiga dad Soomaalida isu cuntayna oo magaalooyinka laga baxay magaalo kasta waa laga yimid dhul oo adiga xoogaa ee baan deganay aniga dadkii soo qaxay biyo iyo deegaan iyo caafimaad waa siiyey waana dejiyey meeshaas waxaa soo degtay 15,000 oo qoys oo qoyskii uu yahay 6 qof waa 90,000 qof 90,000 hay'adahan uga ilaalisa jireen dhihi jiray ii soo warday dadkaygii la ayay waxay ii imaan jireen hay'ado waana abiilkayga marka abiil dirsado waa la ii soo jawaabi jiray mar walbaba